ugu talagalay masaarifta ka helnaa iyo xaqul masaarifta iyadoo dhan laakiin waxaan ugu daray in dawladda si xun noo eryata oo maalmahan ugu dambeeyay inta taliyayaasha hore la bedelay si xun u gurtaa kaarnayaasha caadiska la qaatay waxaan ugu daranba 100 kun oo ganaaxa marka xirada la geeyo oo qasaba amba cirka ka keen amba dhulka ka keen adoo aftixin basalaad hore iyo 100 kun oo shilin laga rabo dawladda hoose arintan ku shaqada leh miyay taali kari weyday inta la idin eryaan iyo goob ka duwan goobtan oo aad ku ganacsataan oo idin dhisto amba idin geyso dawladdu ka eeganayatay inay meel kale muhiim sarabada hargeysa ku filnay dadka oo 3 dabaq laga dhiso dadka laga kareemo oo $50 laga kareeyo ya marka weela qasan maxaa fariineed ugu dambeyn u diraysaa dawladda hoose si aad noloshan uga baxdaan oo aad nolol kale u gashaan dawladda hoose in dadka meel u sameeysan u dirlay kooban ku shaqaysanano kuna hadaan doono lacagtaan bixinno aan ku shaqaysanano wax ku xoogsano in la sameeyo xiriirka iyo cariskaas waa dhib balse mid baa jirto midna ku fiicantay waddanka la ilaaliyo ku fiicantay maanta haddii aan la yiriin baan la qaban dilaa midaasa kaariyo la dhiganaya anaga iga joognaa la midaasa ku fiidan haddaan la qabanayn wadadana soo ku xirmaysa ciidanka shaqadooda wata dawladda shaqadooda wata ciidamada booliska dawladda hoose kula caqabado way jiraan laakiin si dawlad dadka wata sababtoo ah dadku hadaan la baacsan meesha guriga ka dhigan way digayaan wadadan way xirmaysaa taa daraadeed waxa uu noqotay dawlad dadka in la baacsan marna la iska ganacsadaan marna ay dawladda baacsato waxa maxaa fariinay ugu dambeyn aad u diraysaa dawladda hoose waxaan ku lahaa fariin deyn si waan dadka u dhamaan oo dadka xoolada ka dhacdeen kana dadayaan marka dinayaan xoolaha si waan u dictiraan hawla weyn ee ilaa alaabtu inaga jijibiyaan way daadiyaan hadda la kuwaas ka guranaa soo noqono